toddobaatan iyo 6 sano ayaa ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida ee qaranka waxaana munaasabad lagu maamuusay maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu qabtay garoonka kubadda cagta Stadio Engineeriso ee degmada Cabdicasiis kaas oo ay ka soo qayb galeen wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida maamulka gobolka Banaadir madaxda beesha caalamka iyo kumanaan dadweynaha oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho suugaan kala duwan ay kooxda hobalada qaranka ee Heegan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed goobta ku soo bandhigeen kaas oo ay kaga hadlayeen taariikhda kala duwan oo ay soo martay ciidanka booliiska iyo sida ay tiir adag ugu tahay dhismaha ciidamada qaranka sidoo kale agoonta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa dhankooda soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ay ka mid yihiin maharajayga karataaga iyo gaardiska sawaxanka baambeeyda booliiska iyo guuxa gaardiska ciidanka booliiska ay ku soo bandhigayeen fagaaraha Stadio Engineeriso ayaa ahayd mid dareen gooni ah ku reebtay kumanaanka qof ee garoonka ku sugnaa waxayna ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay munaasabadani ku muujiyeen awoodooda iyo sida ay diyaar ugu yihiin difaaca qaranka iyo badbaadinta nafta iyo hantida shacabka taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay sidoo kale soo bandhigeen gaadiidka kala duwan oo ay ciidanka booliiska ku howlgalaan kaas oo qayb ka ah dib u soo kabashada iyo horumarinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu ka hadlay horumarada kala duwan oo uu ku talaabsaday ciidanka booliiska Soomaaliyeed booliiska Soomaaliya wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan maantana wuxuu higsanayaa meel uu ku hanan karo amniga daakhiliga ah ee dalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka dhanba waxa kale oo horumar laga gaaray xiriirka u dhaxeeya degmooyinka 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo 17 saldhig siday wada shaqayn lahaayeen iyo sidii ay isugu xirnaan lahaayeen booliiska iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho magaalooyinka kalena waa la mid waxa kale oo la xoojiyay waaxda la dagaalanka dambiyada ka dhanka ah haweenka caruurta iyo tacadiyada loo geysanayo dadka tabarta daran iyagana waxa loo tababaray ciidankan tababar gaar ah lagu siiyaa kuliyadahooda kala duwan siday ula macaamili lahaayeen haweenka tacadiyada loo geysto iyo caruurta la askareynayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaalo xoogan ku bixisay dhismaha xuduudda ciidanka booliiska oo lafdhabar u ah xasiloonida dalka isagoo sidoo kale sheegay in ay weli sii socdaan mashaariic muhiim ah oo lagu dhisayo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday talaabooyin muhiim ah oo kurgalka xaaladda dhabta ah ee booliiska Soomaaliyeed ku sugan yahay xag ciidan agab dhismayaal daryeel iyo xirfadeed waxaa noo soo dhamaystirmay wejiga labaad ee baaritaanka ukurgalka marxaladaha booliiska waxaa noo soo baxay in booliiska Soomaaliyeed u baahan yihiin dhammaan kobcin dhan kasta ah waxaa noo soo baxay in ay laga maarmaan tahay casriyeynta booliiska Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan faldambiyeedka cusub ee ku soo kordhay adduunka sida argagixisada tahriibka muqaadaraadka iyo dambiyada abaabulan mar labaad waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan booliiska ummadda Soomaaliyeed goob kasta ay ku sugan yihiin waxaan idin rajaynayaa caafimaad cimri dheer iyo in Ilaahay sanadkiisa nabad qab isku keeno Nuur Saciid Aliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho